بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيداد ujeedaan deeqdan raashinka ee maanta halkaa laga qaybiyey waxaa bixiyey markaska Sunni Center Gothenburg Sweden. deeqdan raashinka ah oo maanta lagu bixinayo gobolka Baay, gaar ahaan degmada Buur-Hakaba, deegaan la yiraahdo Ayleesho iyo Dhanaawe, waxaa ka faa'iideysanaya qoysas tiradoodu gaarayso 500 oo qoys oo ah dadkii ay abaartu ku habsatay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu baryaynaa cid kasta oo deeqdani qayb ka qaadatay inuu maalinka qiyaamaha Ilaahay ajar ugu bedelo, wanaagga maanta ay bixiyeenna uu noqdo mid ay sii daa'imi doonaan insha Allahu ta'aala. waa ujeedaan dadkii beerahooda sanadkan aysan roobka ku diin, xaaladooda abaareedna waa kuwa ujeedaan. waxay maanta aad ugu faraxsan yihiin deeqdan ka soo gaartay walaalahooda muslimiinta ah insha Allahu ta'aala. waxaana fuliyey jamciyadda la yiraahdo جمعية النور الخيرية للإغاثة والتنمية حفيز كذا بينهم كاسو ما أنت رجيس أضياش هل كان يكون مادن فوق شذا إذا مركانا داخل أمانة خطر قلي إن يكون وريجيان ذات كذا مستحقين تا حبنا قدية وحكم ده قدوميها الجمعية النور الشيخ إبراهيم علي عبدي إن شاء الله تعالى إما كان أسامة متدوين إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan joognaa deegaanka la yiraahdo Dhanaawe Aynisho Masaare, deegaan weyn oo ka tirsan degmada Buur-Hakaba. runtii waxaan maanta u keenay 500 oo qoys oo raashin tayo leh. sidaad aragtaan qof kasta wuxuu helayaa haaf bur ah, haaf bariis ah, 10 kiilo sokor ah iyo 2 caag oo saliid ah. 500 oo qoys ayaa ka faa'iideysatay. runtii deegaankan wuxuu ahaa deegaan aan 3 xilli aan roob ka diin, dadkeedu ay hayeen abaar aad u daran. marka insha Allah ta'ala walaalaha markaska Sunni Center oo runtii deeqdan soo gaarsay walaalahooda gaajaysan, waxaan leenahay dadka aan raashinkii siinay ma aha, waxa kala jiro dad fara badan oo raashinku ka go'ay. marka insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa deeqda inaysan noqon tii ugu horeysay ee walaalahooda hadday awoodaan Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo inay bar labaad gacantooda soo gaarto. runtii dadkan waa dadkii ugu sharaf badnaa aan raashin siino, sida ay u fadhiyaan, sida nidaamku yahay, sida macnaha dadka maartay xilqaamayaan. waa runtii arrin aad iyo aad noogu cusub intaan wax qaybinaynay. jamciyadda nuur al-khayriya oo ah jamciyadda runtii raashinka qaybinayso oo walaalaha markaska Sunni Center Sweden ka soo gaartay. raashinkaasna waxaa ka faa'iideysan doona Allah awood leh hadduu ogolaado 500 oo qoys. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. كان هذا مرتك कार के लिए बोल देते हैं।
بصورة